Bismillahirrahmanirrahiim. Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halka naga daawanaysaan waa channelka Xogta Media. Waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan diradda ku saari doono madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden oo canaan kala dul dhacay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed. Haddaba Joe Biden waxa uu ka hadlay dagaalada ka holcaya dalkaasi Itoobiya, waxa uu nacay jugleen iyo bogaadin uu isugu daray ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed. falaqeen ayaa daawadayaal ku sameyn doona warbixinteena ayaana ku eegi doona xaaladii ugu dambeeyay ee dalka Itoobiya iyo warkan ka soo baxay madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden. Hayeeshee inta aanan guda gelin waxaan daawaday ka dalbanaya oo ka codsanayana muuqaalkan like saarto la wadaagta asxaabtaada adigoo subscribe inoo saariyo channelka oo furanaya gambaleelka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. sidoo kale daawaday muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag. markaana daawaday waxaad ku soo dhawaataa warbixinteena. intii lagu guda jiray wicitaan dhanka telefoonka ah ee dhex maray ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayuu Biden muujiyay walaac ku aadan dhimashada dadka rayidka ah ee ay sababeen duqeymo xagga cirka ah. tani waxay daba socotaa warbixino sheegaya in ka badan 50 qof oo barakacayaal ah oo lagu dilay weerar xagga cirka oo Jimcihii ka dhacay waqooyi galbeed Tigray. war ka soo baxay aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Mareykanka uu soo dhaweeyay sii deynta hogaamiyaasha mucaaradka, wuxuuna ballan qaaday in uu ka taageeri doono sidii nabad loogu dhameyn lahaa dagaalka lagula jiro falaagada Tigray. xiriirka xukuumadda Washington iyo Addis Ababa ayaa xumaaday kadib markii ay dawladdu ka carootay dhaleecin isdaba joog ah oo loo jeediyay xadgudubyadii xuquuqul insaanka ee dhacay intii uu socday dagaalkii ay kula jirtay xoogagga iska caabinta ee Tigray. xaqiiqda ah in Joe Biden iyo Abiy Ahmed ay ka wada hadleen khadka telefoonka ayaa laga yaabaa in ay calaamad u tahay horumarka. warka ka soo baxay aqalka cad ee looga arrimiyo Mareykanka ayaa lagu sheegay in labada hogaamiye ay ka wada hadleen sidii loo dardargelin lahaa wada hadallada ku aadan xabad joojin laga wada hadlo. waxa ay sidoo kale sheegtay in dhawaan la sii daayo hogaamiyaasha mucaaradka ay ahayd tallaabo wanaagsan, laakiin mowduuca xasuuqa ayaa mar kale la soo qaaday. waxa sidoo kale kulanka uu Biden ku bogaadiyay sii deynta hogaamiyaasha mucaaradka oo ku tilmaamay in ay ahayd tallaabo wanaagsan oo dhanka horumarkii loo qaaday. hase yeeshee mowduuca duqeynta ayaa mar kale walaac laga muujiyay iyadoo maalmo uun ka hor ay soo baxeen warar sheegaya in ka badan 50 qof oo barakacayaal lagu dilay weerar ka dhacay waqooyi galbeed ee gobolka colaadu daashatay ee Tigray. dawladda Itoobiya ayaa sii deysay siyaasiyiin caan ah oo mucaarad ah xilli dalkaasi uu xusayay ciidda masiixiga ee Orthodox Christmas. wariye caan ah isla markaana siyaasi Alexander Nega oo muddo ka badan 18 bilood xirna ayaa ka mid ah dadka la sii daayay. waxaa xabsiga la dhigay bishii June sanadkii 2020 kadib markii ay rabshado ka bilowdeen caasimadda Addis Ababa iyo gobolka ugu weyn dalkaasi ee Oromia kadib dilka heesaagii caanka ahaa ee Hajulo Hundessa. rabshadaha ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 200 oo qof. siyaasiyiinta kale ee caanka ah ee la sii daayay waxaa ka mid ah Jawaar Maxamed iyo Bekele Kerba. waxaa jira baaqyo caalami ah oo soo laalaabtay kuwaas oo lagu doonayay in lagu xaliyo dagaalka sokeeye ee uu dhiigu ku daatay ee ka dhacay gobolka waqooyiga Itoobiya ku yaala ee Tigray. Abiy Ahmed ayaa sheegay in dawladdiisu ay arrintan u sameynayso iyadoo doonayso in laga gaaro dib u heshiisiin qaran sanadna loo qaado midnimada. ciidamada dawladda ayaa mucaaradka la dagaalamay muddo sanad ah kadib dagaal ka dhacay waqooyiga dalkaasi oo ay ku dhinteen kumanaan qof. saraakiil sare oo caan ah kana tirsan TPLF ayaa ka mid ah dadka cafinta loo fidiyay. cafintan ayaa ku soo aadaysa xilli uu dalkaasi booqasho ku tagay ergeyga gaarka ee Mareykanka Jeffrey Feltman oo labada dhinac ku cadaadinayay in ay yeeshaan wada hadallo lagu soo afjarayo dagaalka. Feltman oo horaantii toddobaadkan ku dhawaaqay in uu xilka baneen doono dhamaadka bishan ayaa Khamiistii saraakiil ka socda dawladda wada hadallo kula yeeshay magaalada Addis Ababa.
iyagoo 300 kiiloomitir oo u dhiganta 186 mayl u jirsaday caasimadda Addis Ababa ayaa kooxda TPLF waxaa lagu qasbay in ay dib u gurtaan kadib markii ay rogaal celis sameeyeen ciidamada dowladda. Dagaalka Tigray ayaa qarxay bishii November 2020 kadib markii Abiy Ahmed uu amray in dagaal military lagu qaado ciidamada gobolka. Wuxuu sheegay in looga jawaabayo weerar ay kooxda TPLF ku qaadeen saldhig military oo ay ciidamada federaalku ku leeyihiin gobolka. Haddaynu eegno qodobada saldhigga u aqalalaasaha Tigray, Itoobiya waxay u qaybsan tahay 10 dowlad goboleed. Xiisada u dhaxaysa dowladda federaalka iyo gobolka Tigreega ee hogaamiso kooxda TPLF ayaa bilaabatay kadib markii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu xukun ka qabtay bishii Abriil 2018. TPLF oo mar awood badneed oo maamuli jirtay dowladda in ka badan 27 sanadood waxa booska ka saaray Abiy Ahmed. 3 bishii November 2020 ayay ciidamada amniga ee gobolka Tigray ay weerareen saldhigyada ciidamada qaranka ee Tigray. Masar Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya wuxuu ku dhawaaqay khilaafka dabayaaqadii bishii November, balse dagaalka wuxuu socday tan iyo markii la qabtay doorashooyinka qaran ee 21 Juun. Xoogagga kacdoonka ee daacadda u ajabaadda xureynta Tigray TPLF ayaa qabsadeen magaalo madaxda gobolka ee Maqale. In ka badan 350,000 oo qof ayaa wajahaya xaalado macluul ah iyadoo qiyaastii 5 milyan ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah. Guud ahaan daawadayaal waa inaga intaa warbixintii aan diiradda ku saaraynay xaaladda dalka Itoobiya. haddii aad daawatay isla markaana aad ka heshay muuqaalka laag inoo saar subscribe inoo saar channelka furagan balaalka si durbadiiba aad u heshay muuqaaladan halkan soo gelino. sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag tan iyo warbixintan mid la mid ah inta dib isugu kulmi doonana nabadgelyo.